hay-adda lacagta adduunka IMF ayaa lagu soo waramayaa in ay u ogolaatay misna ay ansixisay in adduun lacageed oo gaaraya 690 milyan oo dollarka Mareykanka ah loogu yabooho wadankaasi Ukraine. barnaamij amaah ah oo ay isla qaabeeyeen qaab dhismeedkiisana uu yahay in wadanka Ukraine loogu yabooho oo la siiyo wadar ahaan adduun lacageed oo gaarayo 8.1 bilyan oo dollarka Mareykanka ah ayaa loo sameeyay wadankaasi oo ay dagaaladu halakeeyeen, iyadoo lagu soo waramayo in loo ansixiyo loona fududeeyay qaybtii ugu horeysay oo gaaraysa 690 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Ukraine ayaa waxa ay qiyaastii wadar ahaan ilaa iyo hadda heshay adduun lacageed oo gaarayo 2.2 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, taa oo ay ku soo saareen bayaan hay-adda lacagta adduunka ee IMF. lacagta cusub ee la siiyay wadanka Ukraine ayaa waxa ay u dhigmaysaa koronka Norwejiga adduun lacageed oo gaarayo 6.7 bilyan oo koronka Norwejiga ah. ansixintan ayaa timid kadib markii dib u eegis lagu sameeyay dhibaatooyinka iyo baahiyaha ay qabaan wadankaasi oo dagaaladii ay halakeeyeen, waxaana lagu soo waramayaa in ay sheegeen Bangiga Adduunka in ay ku guuleysatay Ukraine inay ilaaliso xasiloonida dhaqaale ee dalkaasi, inkastoo wadanka Ruushka ee ay dagaalada ba'ani kala dhaxeeyaan uu burburinayo qaybo badan oo muhiim u ah dalkaasi sida ay IMF sheegtay. waxaana lagu soo waramayaa aragtidan dhaqaalaha cusub loogu aruurinayo wadanka Ukraine ee lagu amaahinayo qaarna deeq ahaan loogu siinayo in ay timid si loo kabo adeegyada muhiimka u ah iyo kaabayaasha dhaqaale ee wadankaasi oo ay saameyn xooggan ku yeesheen dagaalada ba'an ee uu wadankaasi kula jiro wadanka Ruushka ee ay dariska yihiin. adduunkan lacageed ee wadanka Ukraine loogu deeqay ayaa waxa ay muujinaysaa sida garab ay ugu yihiin wadamada reer galbeedka wadankaasi Ukraine oo ay u siinayaan hubka iyo dhaqaalaha si ay ula dagaalamaan wadanka Ruushka oo ay kula jiraan dagaalo ba'an oo sanadkii afraad socda. halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.